السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta qiimaha badan maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa systemkeena qaybtiisa 24aad. waxaan kusoo guda jirnay ama aan soo sameynaynay system aan ugu soo magac darnay school management system annagoo adeegsanayna program lagu magacaabo Microsoft Access Database. Okay, casharkan ka horeeyay waxaan kusoo qaadanay waa maaragtay ama aan kusoo qurxinay wax la yiraahdo login form oo hadda aan u jeedno wejigan hore ah. Okay, halkan waxaan kusoo gabagabeynay guud ahaan objectigeena qaybtiisa saddexaad oo ahaa formska. qaybta koowaad wuxuu ahaa tables, waa kuwan halkan inoogu muuqda. tableskana kusoo qurxinay, labaad waxaan kusoo qaadanay queries, saddexaadna forms ayaan kusoo qaadanay. maanta waxaan bilaabeynaa objectigeena qaybtiisa afraad oo ah objectiga ugu dambeeyay. halkan waxaan tagaynaa create ayaan tagaynaa si aan u abuurno report. objectigeena afraad waa report. waxaan tagaynaa halkan ay noo qoran tahay create, halkan ayaan tagaynaa. halkan markii aan tagno qaybtan reportska ay ku qoran tahay halkan ayaan imaanaynaa. waxaan kasii dooranaynaa halkan ay ku qoran tahay report wizard, halkan ayaan dooranaynaa. report wizard markii aan dhahno hadda tusaale wuxuu noo soo qabtay table lagu magacaabo course table. tableka laftiisa ayaan report u bedeli karnaa oo report aan ka samayn karnaa. Okay, xogtan halkan aan usoo gudino sida formka oo kale. halkan markaan usoo gudino waxaan leenahay next, kadibna waxaan leenahay finish ayaan leenahay. Okay, waa kan marka reportkeena qaabkan ayuu noqday, laakiin waa uu isdhexdaadsan yahay. waan qurxinaynaa marka. Okay, right click ayaan leenahay, kadibna design view halkan ayaan ku dhufanaynaa. halkan markii aan ku dhufano meeshan reportka xoogaa halkan space ayaan ugu daraynaa. halkan space yar aan ku darsanaynaa. sidoo kale halkan waxaa noogu jiro button ah registration table ama registration date, re ayaan ugu dhex jeednaa, balse waan kala saaraynaa, waan bixinaynaa. waa kan registration date wa xagga ayaa ku yaraatay, kadibna waa maaragtay waxay isku imaaday. Okay, kadibna sidoo kale qaybtan oo course fee-ga ah iyadana sidoo kale waan u dhaweynaynaa. durationka sidoo kale waan u dhaweynaynaa, waana gaabinaynaa durationka maadaama waa maaragtay bilo oo keliya ay tahay, ilaa iyo intaa way naga badan tahay. kadibna waan kusii dhaweynaynaa. Okay, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waa maxay badhanadan labalabada iskula socda, duration, course fee, registration date. Okay, badhanadan wax kale ma ahan, qaybta kore waa ciwaanada, qaybta hoosena waa value-ga ama waa meesha daatada ay kasoo muuqanaysay. tusaale student ID waa qoraal, meelna waxaa ku qoran ID1 aa ku qoran. marka waa qaybta hoose waa value-ga ama waa daatadii, halka qaybta korena ay tahay waa maaragtay wax la yiraahdo ciwaankii. Okay, course name laba mar oo nagu soo celiyay qaybtan naga daleed. Okay, course name qaybtan inoo kala bixi, halkaa intaa usoo jiido, kadibna space c. Okay, magaca koorsada. Okay, waa maaragtay iyada waa selection, space xoogaa aan siino, kadibna okay, halkan waxaa inoo haray student name, ardayga magaciisa, isagana sidoo kale halkan usoo dhaweey. Okay, space yarna c. Okay, sidoo kale halkan student ID aa noogu qoran oo meesha ciriiri ku tahay, ama aan iraahday course ID, ayadana sidoo kale space aan siino. Okay, kadibna course table isagana intaan soo qaadno ciwaankan aan keenno meel dhexa aan isku keenno. Okay, xoogaa dhinac ayuu u yara batay, halkan u yara celi. Okay, kadib waa maaragtay caadi sida caadada ahayd ciwaanka inaan bedelno, kordhino, waxyaabahaasaan sameynaynaa. Okay, ilaa iyo 6 soddon oo kale nooga dhig, bold ka dhig, waa maaragtay black tiqa ka dhig, kadibna waxaa inoo doorta farta la yiraahdo Times New Roman. fartaas ayaan ugu badnay oo aan soo isticmaalaynay, ayada ayaana haddana sii isticmaalayna. adigu far alaala fartaad doonto waad isticmaali kartaa. Okay, qoraalka soo kusoo muuqdo hoos ayaad xoogaa ugu yara bixinaysaa, sidoo kale halkanna waad kasii dheereynaysaa. Okay, waxaa inoo hartay marka qaybtan ayaa inoo hartay. Okay, hal mar falaarta waa ku jiidi kartaa, sidoo kale controlka intaad qabato mid waad u dooran kartaa. Okay, ani hadda waa maaragtay controlka ahay, kadibna waa maaragtay intaan dul tago ayaan mid allaala midaan dul tagoba click ayaan ku siinaya. Okay, wax kale ma rabo inaan ku sameeyo, keliya waxaan u baahanahay cabirka inaan 12 aan ka dhigo xoogaa yar, sidiisna waan kusii daysan karaa. sidoo kale
ومارت بلاك تقانا عن كديغو فرتنا أنا مارت كبدل كاليبريا أن دورت فرت ليرادو تايمز نيو رومان أوكي كدبنا عنده view markaan dhahay table-kayga sidaan ayuu u ekaaday laakiin course table-ka dhan ayuu u badan yahay waxaan samaynayaa dhexda ayaan ku aadinaya kadibna pop up-ka iyo sidoo kale waa maaragtay control-da waan kasoo xiraya okay right click design view-da ii door ciwaankayga xoogaa kor u yara qaad kadibna waa maaragtay dhex kusoo yara aadi okay dhexda markaan ku aadiyo marka halkan ayaan furayaa waxaan leeyahay meeshan waxaa ii doortaa report ii door okay report markaan doorto format halkan ayaan imaanayaa halkan markaan imaado waxaan ka xirayaa waa maaragtay control box-ka iyo close box-ka waan ka xirayaa waa sidii formka oo kale okay meeshan waxaan leeyahay no iiga dhig labada meelba sidoo kale halkan otherka intaan tago meeshan pop up-ka iyo model-kana yes ayaan ka dhigaya halkanna yes ayaan leeyahay halkanna sidoo kale yes ayaan leeyahay hadda aan fiiriyo marka okay waa kan report-kayga qaabkan ayuu u ekaaday oo sidan ayuu u qurux badnaaday report-kayga okay qaybta hoose space ayaa jiro waa soo yareyn kartaa balse anigu intaan ayaa iga badan waa wixii kaloo qurxin dheeraad ah waad sii qurxin kartaa okay waana save gareeyay right click close leh okay qaybtan hoose aan fiirino marka waa kan course table oo ah report project afraad ama qayb afraad ayaa noogu soo birto ah waa maaragtay course table sidaan ayaan u qurxinay oo sidaan ayaan ka dhignay waa report okay sidoo kale waxaan xoogaa wax yar ku daraynaa qaybtan ciwaanada oo kale si qoraalka caadi ay ugu soo naato bold ayaan ka dhigaynaa okay right click design view ayaan leeyahay kadib waxaan dooranayaa oo keliya course id student name qaybta kore oo ciwaanada ah oo keliya ayaan dooranaya qaybta keliya oo ciwaanada ah oo keliya ayaan dooranaya okay si aan xoogaa bold uga dhigo okay wax kale kama bedelaya keliya bold oo keliya aan ka dhigaya okay halkan format intaan imaadan waan ka qurxi karaa okay halkan bold iga dhigo keliya ayaan leeyahay okay kadibna hadda aan aragno view aan dhaho waa kan hadda marka qaabkan ayay u ekaatay xoogaa kor aan u yara qaado waa kan student id qaybta kore waa bold waa ciwaano qaybtan korena waa xogtii okay casharkeena 24aad halka ayuu inooga egyahay sida ayuu nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan haddaad cusubtay channelkeena subscribe inoo saar like-ta nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faallooyinka